Barakacayaashan oo u badnaa beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jira carruur iyo haween ayaa waxaa ku habsatay abaarta daba dheeraatay iyo colaado galaaftay nolosha in ka badan oo ka mid ah waxaana wejiyadooda laga dhigan karay barakacayaashan macluul ka dhalatay biyo yari iyo baad la'aan xilli xoolahoodii ay ka dhammaadeen iyagoona soo maciin baday in ay magaalooyinka ay u soo habaabaan si ay u helaan nolosha ay ku jireen mid ka duwan. Barakacayaashan ayaana waxa ay u baahan yihiin xilligan gargaar caafimaad iyo sidoo kaleeto mid nololeed maadaama aysan haysan xilligan meel ay hoy ka dhigtaan iyadoona ugu daran tahay inay wajahayaan cunno la'aan iyo biyo la'aan iyo sidoo kale hoy ay ku hoydaan maadaama aysan awood badan u lahayn in ay helaan meel ay gambaad ay kaga dhigtaan qorraxda jirta iyo dhadada dhacaysa xilliyada habeenkii. Waxa ayna u badan yihiin barakacayaashan dad da'a iyo sidoo kaleeto carruur fara badan kuwaas oo u nugul dhibaatooyinka dhacaya. Qaar ka mid ah barakacayaashan oo la hadla warbaahinta ayaa ka warbixiyay noloshooda caadiga iyo sidoo kale xaaladaha daran ay wajahayaan iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin. Waxa ayna dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, hay'adaha deeq-bixiyayaasha, ganacsatada Ilaahay wax u dhiibay iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeed ay ka dalbadeen in ay u fidiyaan gargaar dhinac kasta leh maadaama xilligan ay wajahayaan nolol aad u daran. jidka hadda lama unuga dhimatay sidoo soo daraa walka kafani waayna amaamada oo qaabniya la kafani unugu alxamdulillah way la fada inta horta bi ma haysano musul ma haysano sid hadii dhamana ilaahay og awlaad horta inta soo awlaad badan inta soo gaaray baaburna ma leh todo bera ko soo bari ma horta waxa soo bari ilaahay anga ma meel daara la yiraahdo soo barini hadan ko soo bari meel ordan kurtuwar ilaahay soo barini lug way mogtahay hadan ko soo bari meel qornyo ilaahay soo barini hadan ko soo bari meel afgoy ilaahay agtiisa soo barini haddana asaasa sideen soo soconay marba meel bariyas markan baahan qabato masaajida aadana inta umuda ana wax la jira daga baahan hayse waan soo dhalba raashinaysa hoga raashinaysa dawanaysa qorninaysa kada banaanka meel karsi jirin alxamdulillah hadda saasa inta soo gaarni qoyska aad u yaraan 180 amal way 180 had way inta soo gaar way gada jira soo soconay mogtahay way hadda soo galay 180 way بقول سيادة حدو إلى أكم بين مال هايسو هاد ساس هاد جرجال قلاص واحد تجسا مير حق فوق سجيسا مسؤول ما دور كان تلاس كله مرجع تكتب وريا أنت ما حفظ يسأل لقدا لكن وها أصلنا كستار أصلنا ذك إلى سوق هذا كرام مقدار وها أصلنا هردو يريدنا ما أنت يريد ندرويسا وهلا ربع سي هان هاد مسؤولنا كانوا بين نكونو راشين نكونو حتى دار ما حسن وكهون ناقا واركيسا نمك كسي درن واي مرك جلابيكي يو حسن كان لدا ادك ساكدا كهبوغو ديبكا ساكجرنا ديبكا الى تدبيكرا الى تدبيلا هي ادى تدبيه كرتا توبرك عن سبلاله لا يكرتواري انت سو مداجد ودادك سو جرني بيي لان اوار باهي ايا او سو كعني ayaa ku imaanay xamar ilmo badan anaga soo dhumeen wax waa soo dhinteen ma sha Allah anako nabad qabnaa xamar imaanay waxay dhinteen waaba laga sabray waxay dhumeen waaba hadii ilaa iyo hadraadiskiisa lagu jiraa dhibaato weyn anaga soo barkacisi aan ku imaanay xamar sila ay sahreer aan ku noolnahay meeshaan waxa ku haysanay ad beeraley ahayn tacab waa tacbanayni wax suuqa ku jira gadisa ku jira wax gaar dameer biyaan shubanayni هذا دواتوين هذا واسك في عنان تولدين مركز جوكني لكن سلام أوارقنا قالين فوارفاتني هذا وباهنا هاي بيو مسقول بعيال راشين أنتو أنا كعنو بيو ما هي سنة مسقول ما هي سنة سورة لو قبيسنا وقت داقل جورجا لو قبيسنا يسا وأنا سيحنا يسا دواتدا سنة هي ستباهن وأنا يسا أنا جو قمر حاجة أويس شبه الله ده هو سكسوق حي أبارا نقصوق حسي xoolihii waa naga dhamaadeen misagadii waa naga dhamaatay roob waan weyne caruurtii annaga waxaan ku noolaanaan soo weyne shicib weynahan soo dhaxgalnay haddana alxamdulilaahi rabbil caalamiin Soomaalida waxaan rabnaa inay noo caawiso walaalaheena oo wax nagu tarto oo noo adeecdo iyo hay'adda inay noo gargaarto ayaan rabnaa
waxaan uga soo barakacnay meeshaan la dhahaa Sablaale baadiyadeeda meel habeen baan ku soo hoyanaynay meel biyo baan ka helaynay meel waxaan ka helaynay shaah meel waa ka soo weynaynay waa soo lugeynay magaalada markaan imaanana baabuuraan soo raacnay oo muslimkaana soo caawiyay halkaan ku soo degnay haddana dadkayga dariska ah oo meesha deganaa oo horteena soo hormaray aan biyo iyo shaah iyo ana siiyeen haddana alxamdulillaah Soomaalidan ku dhex jirnaa gargaar Ilaahay baan ka sugaynaa ummadda gargaarka u furan inay noo gargaartaan rabaan xaafadda waa horteena wixii deganaa biyo ma haysano biyaha kun shilin aan ajringaakii ay ka soo dhaansan jireen biyahaasay wax naga siinayeen waxay cunaan ma haystaan guriyahana teendhay u baahan yihiin annaga waxaan weelku wax ku shubanaan u baahannahay waxaan cunaan u baahannahay ayagana sidaas oo kale waa حبيبي يرو عبدي حسن علي ده ونو ده ما يكاك كويني سبلال معاه باهي نو دلي ولالكي ولن هاي سنة مجرو ونو باهي نو هاي تهولا نو دمادي المهم هاي سنة اوما نو دلي باهي نو دلي ولن هاي سنة مجر ولالكي المحي المهن هاي سنة المهن ولن ولا مسين وايني ترى وايني نقري وايني baahi noo dilo hayto walaalayaalkii soo dhaxgalnay dadkan soo dhaxgalnay una baahi noo dili walanka noolayna waayna walaalayaalkii na noolaya kiidii hore meesha ay joogteen maxaa dhaqan jirtay mar loo agrugni loo haysani beera haysani biyo waayni beeraxana eber waaya xoolaha eber waaye biyaha eber waaye wala noo dambe xoolahaas dhammaadi walaalkii waa dhammaadi xoolo ma haysana hunguro ma haysana inta nolosha soo galay walaalayaalkii adduunyo salaakiis waa soo marnay biyo la'aan baaha gaajo rafaad aan soo marnay inta imaanan wax un gargaar ay halnay malehe ummadana Maxamed naga dhaanta noo gargaaraan rabnaa waa fadhinaa si u imaanay wax maalantan joognaa biyo la'aan oo deemay meel dhahay gobolkan waa lagu hukumaa baraha waa lagu hukumaa jubada dhexe jubada dhexe kawar marka dalwashiina iyo dhaxalada ku sugantihiin nolol horta adduunyo salaakiisaan ku jirnaa muslim dhaxdeysaan joognaa ilaa saasaan ku noolnahay ma ogi meel un biyo meel lagu aroorina male meel laga saarnaa male meel oo qoryo lagu goornaa male wixii muslimna siin waxaan ka karsanaa ma waayni qoryo la'aan rafaad intuu aan joogaan war 17 biryan joogaa marka soo bixisay mas'uuliyadda waa soo lugayn dhaxdana muslimuna baaburna soo saaray meel oo kan la dhahay kan buul la dhahay buul baab marka xoolihii iyo baarihii baarihii eber waay biima leh baraha waa la abuurkii roobkii laga abuuray waa ingagi xoolihii waa dhamaadeen meel wax ere aan haysanay xoolo horta ama dheeraab naga dhamaadeen waxii ere intiin joognaa soo dhamaysanay baaburaan ku soo kor waynay waa soo lugaynay salaakaasaan ka imaanay ummadda islaamka ah ee ku daawanaysa muslimku waxa uu sheegaa intii gargaar degdeg ah noo keen dhib bini'aadan intaas dheeway waxba ugu daran aad tabaneysaan oo maxaa kamid ah unog waxay hadda oo biyo la'aan oo hunguro baaha iyo hooy la'aan abashadooda musqul la'aan biyo la'aan iyo sheegadii hooyadkii tarbaal male say u imaadeen waxa la sheegaday noloshooda hataa qiil waay marka meelahan la iska aadan marmar guday iyo naagahan waxay aadan dhaqow maasha Allah marka waa marmar waa loo soo gambinaa marka intaas dhibaato hayso xoogoodii waa la hayaa laakiin nin loogu shaqeynayo male marka marmar qaar microphone in lagu xirto oo la dhaahata iyo sheegadiga xoog bee in la dhahaabo ku soo dhow marka maasha Allah tabarakallah dadka baahidaas hayso marka in si degdeg ahaan dadka walaalaha ay u soo gaaraan intaasaan ka codsanaynaa dadkan dhooweyda iyo sheegadii shabeellada hoose iyo sheegadii Sablaale deemay salaxow nin walba meel uu ku imaaday beerihii la abuuray biyo la'aan roob la'aan abaaraa ku dhacday xoolihii waa ka dhammaadeen marka dadkan ay u jeedaan dad masaakiin ah waay si degdeg ahaan loogu soo gaaro barakacayaashan ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo buuxdhaafinayay duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kuwaas oo soo maciin biday ku noolaashaha
duleedka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyaguna rajeynaya in ay helaan nolol dhaanta tii ay hore ugu noolaayeen maadaama xoolihii ay haysteen iyo sidoo kale beerihii ay tacba jireen ay ku habsatay abaarta daba dheeraatay ee ku dhufatay qeybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka iyo Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ee loo xilsaaray wax ka qabashada masiibooyinka iyo abaaraha ka jira gudaha dalka Soomaaliya ayaa ka gaabisay wax u qabashada muwaadiniintan abaartu ay saameysay. Wasaaradda Gargaarka wasaaradda ugu weyn ee loo baahnaa xilligan inay wax ka qabato gurmadna u fidaysa dadkan waxayna u muuqataa mid iska indho tirtay wax u qabashada muwaadiniintan Soomaaliyeed iyagoo dhowr jeer hore ku celceliyay inay gargaar bini'aadanimo u fidi doonaan dadku ay saameysay abaarta balse ilaa iyo hadda lama hayo gargaar ay u fidiyeen barakacayaasha kusoo dulqaxay duleedka caasimadda ee Muqdisho kuwaas oo xitaa haysan deegaan rasmi ah ay ku noolaadaan iyo sidoo kale wax ay cunaan iyo wax ay cabaan toona. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay wasaaraddu gargaarka ma barakacayaasha bay wax u qabataa mase waxbay ka qabsataa?